السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا لهمتين كسو دوادا جنال كان فرحي فلسن وفشير هذا أنا وعصبت حاقولينا السودو هذا هرنو الجبتون وقوم هاد سنتا الجوغاغا نهالكا وحاكو سوغينا مانتا أردايكا قلن جبيني سمستا هيرك مستر دقريغا إن شاء الله إسل السعود ونكساد ميشا عيغا كسوغينا بعدين مركا إمادان وحيرو ورهيسيارا لقادان دونا كدب ay noo soo xiri doonaa isla socod wanaagsan waxaan sugnaaba way imaadeen waxaan leenahay soo dhawaada kuna soo dhawaada janalkeena. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. استاذ عباس حكولنا سودو ما انتو حنو مرتي برنامج كينا استاذ عباس ان شاء الله waxaan falanqeyn doonaa maanta wuxuu halkan u joogo إن شاء الله كسعد ونكسن عبس دريمي مانتي مانتي waxaan dareemaa ما شاء الله waxaan romaanti inaan difaaco buugayga Mr. Degree humanitarianka Department of Social Work Master of Social Work maxaa ku doortay ina programka mastoobigan aad masterkaaga ka dhigatid runtii waxaad ogtahay meeshaan ku noolahay doorashada Hawaii dowladda Hirshabelle waxaa soo noqnoqda fatahaadaha aad u faraha badan oo xilliwaadka marka la gaaro webiga uu soo buux dhaafiyo sidaas waxaa igu dhaliyay in buugan ka diyaariyo dhibaatooyinka ay ku leeyihiin fatahaadaha guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan dowladda Hirshabelle ayaa u dhalisay inaan dhibaatooyinkaas aan ka furo topican aadka muhiim ku ah runtiina aan fici doono guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan bulshooyinka Hirshabelle. maxaa ku uga baaqay madaxda Hirshabelle runtii waxaan ugu baaqayaa in fatahaad intaysan dhicin ka hor webiga dhinacyada meelaha ay ka jilicsan yihiin in la adkeeyo isla markaas carituur la sameeyo geedaha iyo qashinka webiga dhexdiisa ku jira inta webigu guro ama biyaha ay ka dhamaadaan laga bixiyo isla markaas dib u dayactir la sameeyo kanaaladii waaweynaa oo duugmayna dib waxaa la loo dayactiro si waxaa la dhahay biyihii ay u noqdaan kuwa maxaa la dhahay aanan soo fatahin isla markaasna loo sameeyo meelo biyo lagu keediyo oo sida mashruucii biyo keedinta meel biyo keedin ah sida asal dowladda hore Saadar Imaam jirtay meelahaas biyo keedinta waxay faa'iido u leedahay biyaha markay badan yihiin waa lagu neefina biyihii waxaa la dhahay lagu keedina markay biyihii yaraadaan waxaa la dhahay lagu soo daan sidaas darteed marka kulama ay biyaha bataan waxaa meelahaas biyo keedinta lagu shubaya markay biyo yaraatay ay dhacdo ama sidaaba kale ay dhacdo biyihii maxaa la dhahay keedka ahaa la soo saxaya si aanan u dhicin wax waxa la fatahaadna inaan u leeyahay biyo la'aan inaan u dhicin aad u mahadsantahay sudoo waxaa kale intoo inoo dhigi Dr. Cabdisalaam Haashim isaga waxaan leenahay soo dhawow Cabdisalaam maxay tahay sababta maanta halkan joogtid bismillaah alxamdulillaah rabbil aalamiin maanta waxaan u fadhinaa maalinta tobanka bisha Juun qalin jebinta masterka qaybta caafimaadka Tropical Disease Management ama Internal Medicine loo yaqaan maanta qaadanayna jaamacadda Quds. maxaa ku dooratay ciwaankaas inaad qaadatid waxaan ku doortay sababtu waxay tahay waa fiil aan ku shaqeeyo waa qaybta guud waana qayb aniga aan interest garanayo ama aan danaynayo inaan bulshada Soomaaliyeed aan ugu adeego Ilaahay maxaa rajeynay insha Allah maanta waxaan joognaa gabagabadii difaacashada booga Ilaahay waxaan ka rajeynayaa inuu maalmo kale oo sii qurux badan la gaarsiiyo Ilaahayna teeda labaad waxaan dadku u rajeynaa inay mar walba bartaan cilmi daarib wax dadka cilmi wax ka bartaan waxba walba aad khaasatan diinta iyo cilmiga caafimaadka in wax badan laga daraasayo laga barto aad u mahadsantahay xulena soo dhawo Dr. waxaan ku mahadsantahay waqtiga quruxda badan aan qayb naga siisay shukran lak man sawama insan utasobi in badan qalbigayla ooyayo aan ku taamay
بدن فرحة بندري ميا فرحة زائد ودرن حفلة سقيني حفلة قالي وفن وحل جبوني يا جوي قالي وعن قلد به ينبا من تبعث أوسغن ما إليس بما إفتن بميس قلبه شدن هكذا لنودبر دقدب شدو تربان أتم هكذا من هكا لحن تنقم أهبر daal iyo tacab dheer kadib hadda na soo gabagabooday barnaamijkeena waxaan kusii soconaa xaafadaheena insha Allah mid ka mid lacin inta ku kulmi doono waxa idinkaga tegaynaa sidaas iyo amaano Allah hada halkan la soo gaartay aad u mahadsan tahay abaalkaaga ma gudi karno.